dhalinyaradu laba cil ay leedo labadaas aan idin ka digaya ku gabagabeynaya laba cilo ayaa jira laba xanuun oo ay u baahan yihiin dadka dhalinyarada inay iska ilaaliyaan xanuun dadku inta badan u yaqaana waa suuqgalka waa inuu ninku tasayo xumaha si fudud baa loo bilaabaa inta badan one step maanta sigaarka la tijaabiya 13 markaad soo qasabto maalin afraadana sigaar yacbad noqonaysaa khamra maalin la tijaabiya maalin toddobaadana khamra yacbad soo baxaysaa suuqa habeen ama laba la tijaabiya bariga dambena routine wala sabtida hadda wadada sii taagan ma noqonaysaa idan kaas waa inxiraaf waa tasayyub waa in tareenka ka dhacdo haddaad sidaa uga dhacdana waxaa adag inaad soo noqoto bale waxaa laga yaabaa aakhiriya adduunba inaad baabaado kaa inta badan dadku wuu iska waaniyaa mid dhanka kalaabaa isna jira dhalinyaradu markay cibaadada qabsadaan ay qumanaanta qabsadaan waxaa habboon iyagana in la hago aan la sii daynin in la hago waan la sii daynin qaar ba xagga kale uga dhaca حاجة كلام قلنا عمله وجدنا نلاش ميزان كذا كلامه ده بتنوع مو تربضية ولو طاعنها النقطة ده بتنوع كلوك واحد قدبية مثلا عبد الله بن عمرو بن عسبة به وجوري سواء اللي يراه مركين له جوري نكنا وحنا القرآن آخر بدن أصاب بدن هبين كنا وتاجي القرآن بآخرية مالتي رسالات هبين كنا القرآن هي الصلاة بوضع مالتي لو أسومية إن أنت لو مهريينا كان في كذا وما تعبان اللي هو إن مالنا الصومن هبين نتاجني أبيه هذا صوم روح الوار بالورة ما إن أنت بيقول بالورة نعم الرجل هو رجل سجاو في عم بيتي مسارك معنا أبا يوتل مامته قود مرت رجنا ووفي عن يرحمك وشيء ماي هو نقص ومن صلاة يهدي عبادة وتاجن خيرنا وقوم بالليه تبتنا النبي وشاء النبي عليه الصلاة والسلام وشيار على لسانة قوة صح معها قرآن كأنت تقوى آخرته هو هبك استوى كتورا بولا ورد مايا كذا بالدي بشي مرة ما قرآنك مركز سوري مايا وان كحوق بدني إذا إلهي رسولك سيو حوقك كفايدته هذا شنوريته كعشر نبي بالدي ما إلهي رسولك سيو إذا وحوق بدني كفايدته تضبطك مرة ما وحوق بدني كفايدته والمرصد 11 مرة ما بالدي ما وان حوق ورالك على مرة في ملوكي 11 على مرة في كجو وهلقوا يدي ور ما نصوما وانا نفرح دنو حلوات المامي رايت ويجا isagoo soon iyo salaad iyo quraan akhris ku jira waxa loo sheegaya xuquuq kale inay luntay ma ha soon iyo salaad inay xuquuqda kala lumiso Salman al-Farisi ayaa ninkii la walaalaya Abu Darda Abu Ayyub al-Ansari si Abu Darda ayuu la seexday habeen buu yimi dabeetana waxa arkay xaaskiisiyo Mariya iska كوي لو شقي جري اسكساته ده قبر لقبابا وكاين حاد عيب وهي تري ولالكا الدنيا دان كماله اخركم مشغول سي مال كله هبكي والله ساحده ان يربا مركي لا جيفو سو بود صحابي انا صلاه بشيري خيرو وار صاحب يقول صلاه لين اسك صحو وكعلي ابا مركي لا جوجو سو بود وار صاحب مسيحي قردم به أقول لك عيمك ما لا تقول تبتني وكل ورد يسوع نفط عذرا حق بيك وقولاته يعني كم مرة هبين ورد سوى كذا هبيك نفط والراحة إن إلهي عابد نفط حق بيك وقولاته إلهينا حق بيك وقولي فريرك أقول حق بيك وقولي يموت الماء وحنوا حقوق مدول بلغ عربة إنت قد بيسوع سبحي بالله شيء النبي عليه الصلاة والسلام سلمان رمبو شيء يقولي سيدا وسلمان شيء صحة waxaan uga dalleeyay dhalinyarada xagga cibaadada timaadana tatarufka kale ku dhaca inuu yiraahdo anu tacliinta ma iska deynay waxa baran maayo
meel lagu xoogsiitay maayo naaga qawba meelaha marmar waxaad qaban dabeetana socialkaad maraysaa dabeetana misaadka dhex fadhiyaysaa hada laysa bidiin wax sax maaha cibaadayso sax salaadaada ilaasho soonkaaga ilaasho been ha sheegin run sheeg cibaadayso laakiin noloshii activity-geedana waa cibaado kale ka qayb qaado waalidka u samafal mujtamacaaga u samafal dadka wax u qabo إذا وحنا لنا كسو كوبا يا أختي واسكن بعض ما في لياي شاب نشأ في عبادة الله بقى أمانا لكن لبدا تطرف من الدين تكون أمانا إن نلا شردن one sided كدكتو ونلا شردن أتسقورا وركتو نلا شيء ولا يروي التحامل ابتلاء قد ما أنتي نتج شاب الله تعالى قال أنا وحنا كتير يا ون هالك كاني صح معها سأوجد وحنا لنا dadka ammaanani waa dhalinyarada ilaahay caabuda ee aakhira ammaan taale cibaadadooda si dadka kale todobada mawaaqif baa loo sugayay iyaga mowqif gaar ah loo sugan cibaadadooda mutlaq baa laga dhigay waxa cibaadadooda mutlaq looga dhigay weelanay inay noloshooda dhan ilaahay u hogaamiyaan labada tarafba waa xunyiin marka in tarafka cibaadada uga dhacdo tatarruf baxdid iyo in tarafka kale uga dhacdo tatarrufka waxa sababaana qofka dhalinyarada isagu is cajabiyo isku filaada waan weydiinin dadka ahlu cilmiga aqoonta dhaame agtiisa jooga aan wax weydiin way hagi lahaayeen waxa sax ah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin